shareecada islaamiga marnaba ma banaynin taqaatuca in la isgooyo waxaa kuugu filan inuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiidka imaamu muslim warinayo albaabada jannada ayaa la furaa maalinta isniinta iyo maalinta khamiista dabeetana ilaahay waa u dembi dhaafaa qof kasta oo addoomihiisa ka mid aan cidna ugu shariig yeelaynin laba nin mooyaane buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laba iyagu maalintaa isniinta iyo khamiista arrinkoodu dib loo dhigaa labadani maxay sameeyeen waxaa la yidhi waa ilaa rajulan kaanat baynahu wa bayna akhiihi shaxnaa qof isaga iyo walaalkii colaad iyo dhib iyo muran u dhex yaallay qoladaa waxaa ilaahay yidhaahdaa andiruu haadayni xataa yastalixa andiruu haadayni xataa yastalixa andiruu haadayni xataa yastalixa labadan arrinkooda dib ha loo dhigo intay ka heshiinayaan baa la yidhaha labadan arrinkooda dib ha loo dhigo idan weynideeda waxaad ka garanaysaa dadku inuu isqabto oo kala go'o oo murmo xumaanta ay leedahay waxay keensanaysaa acmaashaadii khayrka ahayd in la aqbali waayo inaad noqoto kuwa alla u dembi dhaafaya in lagaa reebo ilaa iyo ninkan heshiisaan waxaana macruufa xadiidkii ku yaallay sunan abu daawuud iyo ibnu maajaan rajaynaya iyo kayrkoodba sheekh alalbani saxiixa ku tilmaamay wuxuu nebigu leeyahy man hajara akhaahu sanatan fahuwa kasafki dami ama hajru lmuslimi kasafki dami riwaayadda kalena waa soo aroortay adab ilmufrad lilimaam albukhaariy calaa kullin xadiidku waxa uu tilmaamayaa inaad walaalkaa goyso shaxnaa bay tii hore ahayd colaadiyo inaydi dhex taallo inaad goyso muqaataca ku samaysaana oo aad ka hijrootaana sanad inaad hijro iyo cadho iyo dudmo ku maqan tahayna inaad dhiiggiisa quftay la mid tahay buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam dhiig qof muslimoo la daadiyaana waxaynu garanaynaa sida uu weeye haddaba bini aadamku kala tagga kuma habboona qofka muslimkaana aakhiradiisa iyo adduunkiisa midnaba faa'iida uguma jirto colaaddu